السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wararka UK waxaa ugu waaweyn caawa 24 saac ee la soo dhaafay waxaa gudaha wadanka UK u geeriyooday xanuunka coronavirus faraciisa Omicron 165 qof halka 78610 qofna uu xanuunku haleelay. hadda wixii ka dambeeya waxaa meesha laga saaray qofka marka talaalka la siiyo ka bacdi in 15 minute la sugo si loola socdo xaaladaha isbedelkiisa. 15 minute waxaa qofka loo sugi jiray in la ogaado haddii qofka uu xasaasiyad talaalka ka qaada iyo haddii kale. laakiin arrintan iminka waxaa loo sameynayaa si loo dardargeliyo in dadka dhan la siiyo talaalka nooca xoojiyaha ah oo la rabo in la soo afjaro ilaa iyo dhammaadka bisha December. laga bilaabo maalinta Isniinta ee soo socda carruurta da'dooda u dhaxaysa 12 jir ilaa 15 jir ayaa waxaa loo ogolaaday in ay ballansan karaan ama ay qaadan karaan talaalka coronavirus ee qaybta labaad. dhanka kale dadka da'dooda ay ka sareyso 18 jir ee ku nool gobolka England ee wadankan Ingiriiska ayaa iyagana waxaa u bilaabanaya ama loo ogolaada inay qaataan talaalka xoojiyaha ah ee coronavirus. Ra'iisul Wasaaraha wadankan Britain Boris Johnson ayaa waxa uu sheegay amaba dardar geliyay waalidiinta oo dhan inay carruurtooda siiyaan talaalka coronavirus ka hor inta aan la furin bisha soo socota ee January ee sanadka cusub iskuulada. ninka la yiraahdo David Fuller ayaa waxaa lagu xukumay xabsi daa'in oo aanu weligiis dibadda uga soo baxaynin kadib markii lagu helay in 2 qofna uu dilay meydadka ku jira talaajadaha cisbitaalkana uu kufsan jiray. muddo ka badan 30 sannadood ayuu ninkani faldambiyeedkiisa qarinayay. David Fuller oo iminka ah 67 jir waxaa lagu ogaaday dambiyada in uu galay kadib markii laga qaaday dheecaanka ama dhiiga nooca hiddaraaca ee loo yaqaano DNA. tan iyo kulan dambe iyo wararka wadankan UK waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan hurdo caafimaad.